وهجاك داود يال وحنا نجلس عطان تلفزيون كدلسن مجال دوس مربع عاصمة جبل كجلمدوك أيان جوجنا وحهذا هل كان كسعته سودوين تقبل قابضة مدحونها الدولة الفدرال كاية الصومالية محمد عبد الله فرماجو الله فيلا إن وقتية السؤال وسوق مجال دوس مربع عاصمة الجلمدوك مدحون محمد عبد الله فرماجو يوفد وجامينه يا جورد ولا فيلا إن مجال دوس مربع يسوق جارن تلفزيون كدلسن أيام نجلس عطان هذا وحا جرون كديارتها مجال دوس مربع كسعته قبل قابضة سودوين تم مدحوين محمد عبد الله فرماجو ضد آدو فربضن أو ككليمة مجال دوس مربع قبل كجلجدود حافظي ده أيها هل كان كسوغن كواس أو ديار جروبي سودوين تم مدحوينها هاي وياي جرون كديارتها دوس مربع أيان جوجنا وعسعت قبل قابضة سودوين تم مدحوين محمد عبد الله فرماجو أو هل كان إيمانه يقولوا وهي واقف كم سودوين تا وهي تلفزيون كدلسن يا داود يا التوس نقول سعوتان مجال دوس مربع يا جوجنا جارهان جرون كديارتها وحا سعوت سودوينتا أما قبل قابضة سودوينتا مدحوين محمد عبد الله فرماجو هوينا هذو فربضن أو ككلمة حافظها كالدون مجال دوس مربع يا هل كان يسوي بتواس أو قيبك سودوينتا مدحوين محمد عبد الله فرماجو وياي calanka Soomaaliya ayaa halkan ka babanaya oo dabcan dadka loo diyaariyay soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo ay halkan ku soo yihiin waagaag daawadayaal telefishinka dalsan ay nagala socotaan waxaan la hadli doonaa qaar ka mid ah dadka halkan u yimid soo dhaweynta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo وياي waxaa ila jooga wariyaha telefishinka dalsan Maxamed Cabdiweli Tuuxow bal dadweynaha faahfaahin ka sii waxaad inta وياي قار كم قلنا وياي تلفزيون كدلسن يا توس نقول سعوتان داوديال مالك سعود جوكان هاي مالو ناكسن وانت صاحبيال وياي وقيب كميد سودوينتا iyo waxyaabaha loogu talagalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkan waxa ku xardhan sawirro la soo qurxiyay oo dabcan loogu talagalay sودوينتا وياي وقار كميد dadka ku nool xaafadda Horseed ee magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta sawirkan uga qayb qaadanaya sودوينتا madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
gabdhahan quruxda badan wiilashan dhalinyarada iyo sawiradan ay ku kala xardhan yihiin madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa halkan ku xardhan ayaa saaxiib soo dhawow Dalsan TV ku soo dhawow faahfaahinayga sii bal halkan iyo waxaad u timaadeen inta waxa u imaanayna soo dhaweyn madaxweynaha Soomaaliya waagan xaafadee ka timaad adigu xaafadda hoosteeda ka imaad aniga waya هي soo dhawow saaxiib magacaaga ugu bilow Dalsan TV ku soo dhawow magacana Nuur Aldaa هي halkan maxaad u timid waxaan sameeynaa soo dhaweyn madaxweynaha Farmaajo Soomaaliya jeclahay waa gartay ma markii ugu horeysay oo mas'uuliyiin dawladeed halkan ku soo dhaweysay mise hore garoonkan waa u timid markii labaad soo dhaweey markii labaad waa timaado waay way aad baad u maasantahay haye idinku gabdha soo dhawaada adiga Dalsan TV ku soo dhawow xaafadda hoosteeda magaalada Dhuusamareeb aad degantaa Soomaal waa gartay halkan maxaad u timid waa gartay ka waran dareenkaaga sidee weeye way aad baad u maasantahay haye walaal soo dhawow adigana magacaaga ugu bilow سيام هي مقالة دوسمريبا تجنده كحافظة واقرتي هل كانوا قرون كام حاضر تمد مانتا وهي هيئات بدو ما صوتاي ولي واحد مقالة سعودان تلفزيون الدلسن أو توس مركزي أنا نكلا سؤال لأنه مقالة دوسمريب عاصمة قبل كجلجلود طبعا واحد صعودة سودوينتا sameeynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaasi halkan lagu soo dhaweynayo waxa halkan ku sugan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo qayb ka qaadanaya soo dhaweynta madaxweynaha dabcan waayay soo dhawow maamo Dalsan TV ku soo dhawow bal dareenkaaga iga waran waa gartay Soomaaliya ayaa la soo dhaweynaya dareenkaygu waa kacsan yahay dadweyne tiro badan aad u tiro badanaana 600 oo qof oo kun waa ka badanaa maanta dareenkaygu waa faraxsan yahay waa ka waayay aad baad u maasantahay waa ku mahad celinaynaa telefishinka Dalsan ayaa daawadayaal nagala socotaan haye soo dhawow walaal haye iga waran dareenkaaga waa sidee maanta waagaag aad baad u maasantiin waayay dabcan sarkeysaan gabdho kala duwan oo dhar kala duwan wata waa xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Dhuusamareeb dabcan dadku waxay wataan boorarkaas iyo sawiradaas uu ku xardhan yahay sawirka madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayo walaal Dalsan TV soo dhawaada bal dareenkii iga warrama haye waagaag waayay haye واقع كورن عبدك اسمه ذا مقالة دوسمريب ويا ممرشة كور رئيسي ومسؤولين دولة السود ويسار شوري بعد كل يوم جبتين ويا وما سنتاي هي ويا ولي واحد نقرأ عن تلفزيون كده هي السود وما يعيقوا بلاو هي حقيقة من حافظة حافظة هذا مقالة دوسمريب هي يقولون درين كاقوا سليمان واقر وهي أدبل ما سنت هي أديك أدبل مرة أفضل قادنا هي سودو هي ما قاعد شيء هي عندي دلسن TV سودو يقولون درين كاق ما والله لا مش الكل كرتين كي ما تقول ما أنت فرماتو ما فرماتي ويا عالك الصومالي كله بسنده ويا ما مركب هو الرسالة كانت ما دام سورة ومنجر ما أنت كمان مدخلها سودو وينيس نصيب بدو يلا تمانتين مدحين سودويس وهاجا قاعد بدو ما سنتين داوديال تلفزيون دلسن أي توس نقول سعودان عالك الصومالي أي عالك كمبنية أو مركزي أي ولا طبعا مثلا أو كمان يدك سودو ويني مامو كسودو تلفزيون دلسن يجورن بالدرين كاجي يسودوين هذا ما أنت هي واقف عالك كان بعد هي ستاتني ما أنت إلا ورنا هالكوات مثل الكورة وهي هويدا سيدا arkaysan waxay wadataa calankaas oo dabcan iyadoo ay gacanteeda ku hayso waxay halkan u joogtaa inay soo dhaweyso madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkan imaanaya وهي daawadayaal telefishinka Dalsan nagala socota halkan ciyaar qurxoon ayaa ka socota hagaag وهي waa ciyaar baraambaro oo soo dhaweynaa
waayahay telefishinka dalsan ayaa toos nagala socotaan waayahay haye hooyo soo dhawow iiga waran bal maanta waxaa halkan u timid halkan uu madaxweynaha sharafta la soo dhaweyntiisa waa gartay sharafta abdisiyaas xaafadee baad ka timid adigu xaafadda horseed ee magaalada dhuusamare waayahay horey ma halkan u imaan jirta markii madaxdu imaanayso waa gartay kulli waxaan ka soo degay waa gartay waayahay waxaad iiga warantaa bal sidaad u dareemaysaan haddii aad reer dhow masare mareebtiin faa'iido weyn waa gartay ilaahay weyna waaxda madaxweynaha ilaahay sharfay inuu nabad noogu keeno annaguna aan nooga tusayaan nabadna uu nooga tago waa gartay shir baa magaalada lagu qabanayaa sideed u arkaysaan waxaan u arkayaa nabad waartay waayahay aad baad u mahadsan tahay waa ku mahad celinayaa haye maama soo dhawow iigu bilow magacaaga haye maanta meeshan waxaa u taaganaha madaxweynaheena sharafta leh maxamed cabdulaahi farmaajo soo dhaweyntiisa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed rajo weynna waxaan ka qabnaa 2021 dib inuu soo noqdo oo gaaro 2025 rajaan ka qabnaa waana danaynaynaa waa madaxweynihii dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo isku xirka soomaaliyeed ayaan leenahay soo dhawow madaxweyne waayahay waa mahadsan tahay weli daawadayaal telefishinka dalsan ayaad nagala socotaan halkan ciyaar baa ka socota halkan ka socota dabcan oo markaasi hablahan ay ugu tala galeen soo dhaweynta madaxweynaha soo dhawow maama dalsan TV ku soo dhawow iga waran dareenkaaga aad iyo aad aan u rabaa farmaajo inaan soo dhaweeyo ugu faraxsanahay ciyaar baa halkan ka socota dabcan aad baad u mahadsantihiin waa idiin mahad celinaa waa xaafadda horseed ee magaalada dhuusamareeb dabcan gabdhahan waxaa ka mid ah maamooyinkan oo runtii aad uga qayb qaadanaya maanta waxay ka mid yihiin dabcan dadka halkan ee ku soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdiga la socda وهجت داوديات toos ayaa telefishinka dalka daawadayaal noogala socotaan meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqti wanaagsan garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ayaan toos markaas idinkagala soo hadlaynaa ciyaar ayaa halkan ka socota lagu soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliya aad bay u fara badan yihiin dabcan madaxweynaha soo dhaweynaya waxay isugu jiraan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug waxaa halkan dabcan jooga dad aad u fara badan oo markaasi ciyaaro kala duwan soo bandhigaya dabcan daawadayaal ciyaaro kala duwan ayaa halkan lagu soo bandhigaya ciyaartan waxay qayb ka tahay dabcan ciyaaraha lagu soo dhaweynaya madaxweynaha
Soomaaliya wali waxaan joognaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo ay ka socoto xafladda qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo dhaweynta ayaa halkan ka socota badan ayaa jooga maamooyinkan ayaa ka mid ah dabcan soo dhaweynaya weli garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb ayaan joognaa waa qayb ka mid ah bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo dhaweynaya ayaan weli joognaa garoonka diyaaradaha ayaan joognaa dabcan ayay soo dhawow walaal magacaaga ii sheeg halkan maxaad u timid ma markii kugu horreysay oo halkan mas-uuliyiin ay ku soo dhaweysay mise hore waa maasan tahay haye walaal magacaaga ii sheeg iga warran dareenkaaga iyo sida madaxda aad u soo dhaweynaysa maanta maasantahay waayahay aad baad u maasantihiin haye maama soo dhawow magacaaga ii sheeg iga waran bal soo dhaweynta maanta madaxweynaha Soomaaliya